السلام عليكم أصحابتي waa idin wada salaamay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waxaan rabaa arrin yar inaan idinla wadaago arrintani waxay ku saabsan tahay xagga benefitkay ku saabsan tahay iyo arrimaha dhici doono hadda weli ma dhicin laakiin way dhici doonaan arrintanitood sababtoo ah waxaa waa dowladda hadda labadii cunug benefit capkii way ka qaaday taa calaa adligeed waxaa jira dad badan oo bulshada ka mid ah ee arrintaas ka xanaaqay waxaa kaloo jiro xisbiyada kale ee kasoo horjeeda dowladan hadda dhisan xisbigan hadda dhisan muxuu ahaay ayagana taas ay waxayba ka dhigteenba muxuu ahaay waxyaabo ay ku dagaalamayaan ay ka dhigteen oo muxuu ahaay hub ayba ka dhigteen hubka ay ka dhiganayaan waxaa ka mid ah ay leeyihiin inta ciidamada la dhisi lahaa iyo wadanka difaaciisa welfareka ayay dhistay dowladanitood xisbigan hadda haysto marka taa calaa adligeed hawshaan ma socon doonto oo benefitkan ma socon doono maxaa jira dowladan hadda daciif waaye wayna sii daciifaysaa oo maxaa jira hadda electionka soo socdo counsilada ayaa loo woodayaa marka counsilka loo woodo waxaa waaye counsilkooda wuu yaryahay siday ku guuleystaan laga yaabo meelo inay ku guuleystaan laakiin hadda xoogga awoodda badan oo hadda ay haystaan ma haysan doonaan oo xagga counsilkan ka hadlaya oo xaafadihiin ama baraga aad degan tihiin inaysaan usii socon doonto waxaa jira labada xisbiyoo kale reform way soo xoogeysteen aad ay usoo xoogeysteen conservatives saasay aaday usoo xoogeysteen marka taa calaa adligeed labadaas mid ka mid a hadday qabsadaan benefitka waa yarayn doonaan aad ayaa loo yarayn doonaa tujaal kaabkana sidii ay kusoo noqon doonaa waaba soo celinahay tiri middan waaba ku dhaaratayba muxuu islaanta oo kuwa buluuga ah magacooda ma sheegi karisaa tiktok wax badanay iga xanibeen hadda inaan ku celceliyo ma aan xagga oo siyaasadda anaan ka hadlaba maba ahan marka asxaabta sababtaan aga hadlayo waxaa waaye hadda waxaa yeeshaan arrintan intii oo fursadda aad leedihiin fursadda aad haysataan oo benefitka aad dadka qaataan ka hadlaya keliya dadka benefitka qaato dhan waaya koytada keliya ma ahan inaad ka faa'iidaysateen waa aad ka faa'iidaysataan aad muxuu waxbarasho aad gashaan waxbarashadana free ayay idiin tahay haddii benefitba aad qaadato teeda kale haddii aad shaqayso 16 saacadood waxaad helaysaa free childcare meel ilmaha lagugu ilaaliyo oo free ku ah haddii universal credit aad qaado universal credit waxay kaa dhiibaysaa 85% ayay kaa dhiibaysaa marka shaqadaas yar raadso waxbarashana xooga saar marka muxuu ahaay arrintanitood intay hadda aad fursadda yar haysatiin muxuu ahaa benefit hadaa qaadato free waxaad helaysaa waxbarasho oo free ah marka ka faa'iidaysta arrintanitood xooga saara waxbarashadiina shaqadana xooga saara insha allah intaanaba la gaarinba xisbigan uusan dhicin electionka weyn oo dambe dhici doono oo baarlamaanka loo woodayo kan ma haysanayaan kuwa kala qabsan doonaan saa hadday hal lug ku taagan yihiinoo ay rabaan ra-iisul wasaaraha inay tuuraan wasiiradda maaliyadda inay tuuraan xisbigoodiyaaba iska soo horjeedaba marka asxaabay ka faa'iidaysta waxbarta aan barwaaqo gaarnay waxbarashada ku dadaala meel kastoo aad joogtaan asalaamu calaykum videogan sheer gareeya followna soo dhaha followga yaan la iga xasdin dad oo ama followba ii aheenaa jiro ee dhegaysto asalaamu calaykum